السلام عليكم magacaygu waa Salaad Muuse Maxamuud kusoo dhawow channelka Salaad Soomaali Technology channelka haddii aad ku cusub tahay fadlan subscribe saar haddii aad hore noola joogtana welcome always waxay noo socoto kursideennii C language xalaqadiisa waxaad soo qaadan xalaqadiisa branch statement oo FL statement if statement simple if statement switch statement waan ka soo gudubnay hadda lesson-keena wuxuu ku saabsan yahay loop statement so today topic-keena wuxuu ku saabsan yahay loop statement waa maxay macnaha loop iyo meesha uu ka taagan yahay C programming midda kale loop iyo branch statement-kii aan soo qaadanay labadaba looma isticmaalo keliya C language ee waxa loo isticmaalaa program kasto haddii aan labadan taqaano waxyaabo badan ayaa ka fahmaya because program kasto dhammaantood way isticmaalaan waayo waa lafa dhamanta programka macnaha loop waxa waa loop statement allows us to execute a statement or group of statement multiple times or execution again and again means repeatedly معناه loop معناه هو statement تيجينا كان دونينو إن أن execute جرينا أما أن print جرينا أحكي بدن 1 and 2 وأحكي بدن 1 ما أنتظر إن statement تي أن دقنا بسولف علنا وقتنا كقاعدنا وكل loop statement وقوف وذينا statement تيجاس أنت ما أنتظر نيجي لهذا حلقة بعد كنا طبعا كلام ما لبضة كلام سدح كلام loop استعماله loop كاسا أسيكي كوجو سؤال علنا statement تيجا قال كوجو سؤال علنا again and again so معناه loop كاسا حدي أنا فهمين الدم على program كسيف عنده سيف فهمين دونتا types of loop types loop أسيك أنا كوجو سيد هدان وحوان number 1 وحوا for loop second وحوا while loop 3 وحوا do while loop so عشان كان تودي بسبسي هاي من ضمنها قاعدين ما محي for loop وكميدي هاي صدق ده types for loop وكميدي هاي أصيغنا وحلا استعمالها كدوني يصير إنه statement هذا أو execution كسميه one more time so وكوفو هنا syntax أصحابته يسوي دي syntax معناه محيته syntax محل الاستفادة syntax وحوا أيضا البروجرام كغيوين كتاجنتاي وايو instruction key أو أتفهم هذا وحين syntax ده فهمته معناه ده حكي لقيت عليه بروجرام قريب كم يدور فهمته هذه syntax كانت فهم سنتين so syntax أو فوق اللي بخلونا first وحلا ده for initial واحد فوقنا parentheses أما سبيشان فوقنا initialization semicolon على هاي ما قصدي واحد كده test condition semicolon على هذا modify معناه modify محوا modify وحلول كده increment and decrement وحكمتهن operators كوبحيو C language programs وحكمتهن لكن C language نو وحكمتهن so increment معناه ده خنقنا بلاس ومعناه وتاجن one halkii markuu execute uu sameeyna halkii markuu execution uu sameeyo plus 1 decrement aydan waa naaqusin waxa noqonay bedelka cagsigeed minus noqonay oo uu taagan aydan 1 naga oo yani 1 uu ka goyna minus uu isticmaalan kan waa increment waa u siyaadina plus 1 uu leeyahay so waxa isticmaali kartaa plus 1 ama soo xadii kartaa plus labada calaamado plus ka minus aan leedahay hadii kale minus 1 saajasha so هل ودي يعني قابك يعني واستعمال so modify وكذا decrement increment الله استعماله then نقص محاكو فيه تغيير كان بريكاديان أو من وافق من وحاجة كان دحنا أنا حكوا ديه board of the loop يعني إذا هو أنت يعني براكت كان أنتوا بحيثوا أنتوا loop وسامينا واحد دي بده كحيجو بس يعني دي بده رواه بحيث أما سبناك كحيجو أما سكن كذا ما سامينا for loop براكت كان كحيجو كان كلا أوضن بير لكن أنت بحيثوا أيو loop
ku isticmaalay wixii ka baxsana banaanka ma isticmaalaysa wixii fawtaan wixii ka shisheeyana ma isticmaalaysa okay ina fahanteen aan filaa soo waxaan u gudaynaa practicalkeena code-keena soo always waxaan isticmaalnaa code blocks because code blocks aad u fudud yahay ideyada kale oo la isticmaalo soo intuu noo soo kacayo soo nasbalaadka ku dhifanaynaa min main siya ku dhifanaa then code-kan u baahnaa dilada iska dhignaa code cusub samaysanayna waxaan sameynaynaa shift hash include stdi o.h so macnaha waa maxay include stdi.h include hash include iyada waa preprocessor stdi.h macnaheedu waxa waa std wuxuu taagantahay standard I own wuxuu taagantahay input output h tan wuxuu taagantahay header file so stdi.h anaga ma aan samaysan already wuu samaysnay library function ku kamid yahay anaga waxa samaysana ma ahan mid kale programka kama kamid ahan balse programkeena functions kamid ayaa u baahan for example scanf printf iyo kuwa kale badan kuwaas ayaa loo isticmaalaa sida input iyo output markii aan doonayno waxaabahaas wuxuu baahan yahay kan balse asiga ma noo baahno soo programkeena kama mid ahan balse programkeena wax ka mid ah ayaa u baahan asiga ina kala fahantaan aan doonaa soo next waxaan leenahay main markaa lahado bil afuqa bil aakhire waxaan leedahay waxay kala soo qaadanaya for example waxaan sameynaynaa example waxaan leenahay inti waa integer ayada decimal value wixii aanan buu inti wadanin soo inti for example waxaan iska leenahay inti n equal to noola mid tahan leenahay for example 20 or 10 for example 10 iska leh then waxaan leenahay for aan soo qaadanaynaa for loop waxay kala fulinaynaa initialization soo xasuus haddii soo xasuusiyo waa kana for markaa dhahdo waxaa leedahay initialization negative test condition then waxaa ugu dambeeya modify so macnaha initializationka waan soo qaadanay initialization waxa waa for example hadda waxaan sameyn meeshaan inti n haddii aad dhahdo inti n haddii aad ku ekayso micnaheedu waxa waa declaration n ayaa keliya declare garaysa haddii aad laakiin n oo value siiso dhahdo n equal to 10 micnaheedu waxa waa initialization inti waa data type n waa variable 10 waa value-gan waxa iskale variable-kan so wuxuu noqonaya markii like waxa la isku dhaha initialization laakiin haddii aad n keliya dhahdo taas declaration ay noqonaya inaan kala fahantaan isku daya so hadda waxaan leenahay inti aan qaadanaynaa inti for example ayaan leenahay equal to waxay noola mid tahay 0 inti ay waxay noola mid tahay leenahay 0 semicolon then waxaan leenahay ayaan soo qaadanaynaa I is less than or equal n n semicolon increment bay noqonaya mise decrement noqonaya anytime oo isticmaasho meeshaan kaadi hadda increment noqonaya laakiin idigu soo celinayso I plus plus okay maxaa isticmaalay fogaan dhahay fog markaa dhahay bishaana fogtay bishana ugu dambeynaa soo xiray okay bish markaa fogtay waxaa dhahay initialization waxaa leedahay first variable-kaad isticmaalayso waa inay initialization u sameysaa midda kale muhiim maahan in yani feega dhexdiisa aad ku diglariyayso waxaad dhigi kartaa ayaa ka bilaabi kartaa oo meeshaana kasoo qaadi kartaa yani waxaan samayn karnaa meeshaan comaa dhigi kartaa ay meeshaasaa dhigi kartaa hadhowd waxaad dhigi kartaa ay wixii noola mid tahay intaas okay saana ku bilaabaynaa
so waxaan leenahay inti I equal to requirement as 0 okay taas initialization kii waa next conditionka programka oo test ku sameynayo conditionka waa kana condition I equal to I less than or equal to n so n waxay nool mid n waxay nool mid n qiimaha haysanaa waa 10 okay I maxaa haysanaa I waxa haysanaa wax baqayna ma haysano oo siran haysanaa so I less than or equal to n okay taas macquul ah noqonay then I plus aan leenahay because waxaan doonaynaa ilaa iyo 10 laga geeyna inuu condition ka noo fiirsho I equal I is less than or equal to n level I first qiimuhu soo qaadanaa waxa waa 0 waa ka yartay 10 okay plus uu leeyahay plus markii dhaho halkaas plus wuxuu dhigmataa plus 1 okay I waxaan noo mid noqonaynaa 1 then next condition oo soo laabana I maxaan haysanaa I wana haysanaa because first 0 yahay condition kii yani plus lagu sameeyay 1 in noqotay hadda 1 aan haysanaa 1 hadana uu ka hooseeyaa 1 kala hadana yani plus aan leeyahay 2 in noqotay 2 sidoo kale hadana qaabkaas ilaa 9 wili ka hooseeyaa maana 10 ha 9 way ka hooseeyaa then 10 way maana 10 way ka hooseeyaa okay 11 kama hooseeyo then stop galayna programkeena meeshaas uu ku okay hasameynayna bracket ka fulinayna waxaan leenahay for example inta afaydo waxa loo isticmaalaa kiyaad isticmaalaysid output ka loo isticmaalaa so waxaan leenahay I'm using for leenahay for example semicolon okay programkeena saasoo noogu egyahay execute ku sameynayna intaan execute ana ku sameyno waxaan leedahay build ama sa combine waa jiikraynayna wax qalad inuu leeyahay in kale okay wax qalad ma lahan dan waxaan leenahay execute ku sameeyo waa kana I'm using for loop I'm using multiple times soo celisho waa iyadoo again soo celinaa waxaan sameynayna new line meeshan gashanayna si page kastaba statement kasta oo new line ugu bilowdo new line aan leedahay okay semicolon okay kana hodai I'm using for loop I'm using okay again ku soo celishi okay sideen ku ogaanaa yani inuu ii daabacay 10 okay waxaan ku ogaanayaa tusaale kale waxaan leenahay meeshaan waxaan gashanaynaa percentage d aan leenahay because int waa decimal so d aan qaadanaynaa new line aan leenahay okay comma ayaan soo qaadanaynaa okay hadda ayuu noo sheegaa inta aan daabacay kooy toban lagu baahan yahay daabac because wuxuu ka bilaabay 0 up to 10 waa 11 okay oh 0 ka bilaabay 10 okay waxaan noqonaa 11 isku noqonaa soo kale meesha ma bedeli kartaa in qiimaheedu waxaan ka dhigi karnaa 25 aan leenahay then akana 0 to 25 I'm using for loop 6 to 25 so معناها إذا فهمتين أو loop لو استعماله loop معناها لو استعماله هو statement marka doonaysid inaa execution ku sameyso one more time again and again then maanta dhan inaan dhaho yani printf I'm using for loop haddana next printf I'm using for loop